keebe walaalaha qiimaha badan oo waad wadaan shaqada waan arkaa sii biingareeya oo sii sheergareeya haddii alla uu qadaro muxaadarada ayaan iska bilaabanaynaa fadiilatu sheekh iftiimiye soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu maantay faaqidi doonaa oo falanqayn doonaa kana hadli doonaa mawduucan ah ilxaadka iyo cilmiga wax badan waxaad maqashaan malaaxidada oo isku dhadhajiya cilmiga oo dhaha cilmiga aan sayniska ayaa wax kastaba ka jawaabaya nolosha wax kasta oo ku saabsan iyo kownka universiga wax ku saabsan oo dhanba asaga ka jawaabaya marka waxaa loo yaqaano cilmiga in laga dhiga ilaah cilmiga ayaa wuxuu yahay ilaah asaga ah wax kastana looga jawaabaya marka ilaahba uma baahnin in badanoo marka waxaa aragtaan inay ragga odayaasha ay saas dhahaan marka waxyaalo badan baynu ka hadli doonaa maantay caawa insha allah hadduu lahaydmo oo ah cilmigu ma ka hor imaanaya ilahay jiritaankiisa cilmigu siisa muxuu ka hadlaa malaaxidada iyo dadka kaloo mu'alliha la dhahaa waa atheist iyo theist yani culamada santiistaha ah oo theistiga ah oo ilahay jiritaankiisa rumaysan iyo kuwa kale oo ilahay jiritaankiisa aan rumaysnayn yaa saamayn badan iyo awood badan iyo tiro badan aynu ka bilaabaynaa muqadimada u horeysa oo ah sheekadan ilxaadku meeshay kasoo bilaabatay aynu wax ka taabanayno iyo asbaabihii keenay ilxaadku ma asbaab cilmiya uu ku yimid mise mushkilad nafsiya baa keentay qodobka u horreya horta aan ku hormarayna waa kaas marka laga hadlayo insaankii joogay qarniyada dhexe ee Oroba loo yaqaano alquruun alwusta yurub insaankii joogay طبعا waad garanaysaan quruntaas waa qurunta ay u yaqaanaan alcusuur almudallima ama waa xilliyadii mugdiga ah bay dhahaan ru'yada uu koonka ka haystay ama tilmaanta uu koonka ka haystay sidee bay ahayd maxaase isbedelay insaanka xilliga qarniyadii dhexe ku noolaa Oroba ama Yurub ku noolaa wuxuu ahaa insaan masiixi ah oo haysta diinta masiixiyadda intooda badan dadku waxay haysteen diinta masiixiyadda ay haysteen christianity ay haysteen waana xilliga ay ugu awoodda badnayd kaniisaddu yani kaniisadda ayaa awoodda ugu sarreysa iska lahayd ayada ayaa wax kastaba xukumi jirtay dadkuna ay hoos fadhiyeen xilliga asaga marka kaniisaddu adduunka ay xukumaysay wax kastana iyada ay hoos imaanayeen oo wadaadadu ay ahaayeen awoodda ugu sarreysa bulshada ama dowladdaba xilliga marka aynu ka hadlayno insaanka xilligaa joogay koonka muxuu ka aaminsanaa diinta masiixiguna koonka seebay u fasiraysay marka ayada kadibna maxaa dhacay maxaa isbedelay aynu ku horumarno insaanka xilligaa joogay wuxuu koonka ka aaminsanaa qodobadan soo socota koon ka aaminsanaa kow in dhulku uu yahay the central of the world the central of the universe manaha dhulku waxa weeye waa centerka koonka dhulku waa centerka koonka dhulku marka ma wareego ee waa taagan yahay dhulku ma uu wareego ee waa taagan yahay waana markaska koonka weeyaan waa centerka koonka weeyaan asaga ayaa lagu wareegaa oo waxaa ku wareega qorraxda iyo dayaxa iyo dhammaan kawaakibta oo dhanba ma planets oo dhanba asagay ku wareegaan
solar system ko dhan dhulka ayuu ku wareegaa. Dhulku markaas waa centerka koonka weeye. Waa meeshii centerka ama bu'da u ahayd koonka, mana dhaqdhaqaaqayo wax allaala wixii planets asaga ay ku wareegayaan. Waa fikradda xilligaas ay aaminsanaa insaanka ama bini aadanka joogay xilligaas qarniyadaas dhexe Oroba joogay ama Yurub joogay. Waxay kaloo aaminsanaayeen in koonkani uu Allah subxaanahu wa tacaala abuuray. Koonkan inuu Allah abuuray. Uuna abuuray taariikhdu markay ahayd 4004 qabla almilaad. Yani waxay aaminsanaayeen koonka in la abuuray maxay 4004 taariikhdu markay ahayd 4004 nabi ciise dhalashadiisa ka hor ayaa koonka la abuuray. macnaha bitahdiid fixed time bay sheegeen waqti xadidan way leeyihiin taariikhda noocaas ayaa koonka la abuuray. waa 4004 baa koonka la abuuray. waa sida masiixiyiintu ay qabteen. waxayna dhaheen koonku wuxuu dhammaanayaa oo gabagaboobayaa 4400 oo miilaadiga ah. macnaha ciise dabadiis koonkan waxaa albaabada la iskugu laabayaa oo ay qiyaamadu ay dhacaysaa 4004 marka la gaaro. 4004 marka la gaaro taariikhda miilaadiga ah oo hadda aynu ku jirno oo hadda 2022 maraysa marka ay gaarto 4004 ayaa koonka oo dhan gabagaboobaya oo ay qiyaamadu dhacaysaa. masiixna waxay dhaheen wuxuu ku soo aaday wasadkii iyo bartamihii taariikhda. macnaha labada taariikhood dhexdooda ayuu ku soo aaday. macnaha 4004 waa ka horreysay 4004 way ka dambeysay. masiix marka wuxuu ku soo aaday dhaheen xilligaa bartankaa ku soo aaday. waa laba qodob oo midna ay ku fasirayaan ardada iyo waxa ay tahay, midna ay ku fasirayaan taariikhda koonku xilliga ay bilaabatay. sidoo kale waxay aaminsanaayeen koonku inuu iska leeyahay manduuma akhlaaqiya oo sida hadda islaamku aaminsan yahay oo kale inuu yahay koon ku dhisan akhlaaq ku dhisan oo iska leh gaaye iska leh. koonkaasoo ilaahay uu xadidayo khayrka iyo sharka dhexdiisa yaalla. waa nidaam dhammaystiran oo akhlaaqeed oo sharka iyo khayrka dhexdiisa yaallana ilaahay uu xadidayo. waxaa mudda islaamka kaga mid yihin. okay waxaa kaloo intaa usii dheerayd qolooyinkii kiristaanka ahaa ama xilligaa joogay quruntii dhexe inay aaminsanaayeen rijaalul kaniisa inay yihiin ama dadkan kaniisadda madaxda ka ah wadaadada kaniisaddu inay yihiin kuwo u dhexeeya ilaahay iyo bini aadanka. wadaadada kaniisadda ayaa waxay u dhexeeyaan ilaahay iyo bini aadanka. toobadda marka la aqbalayo ayagaa la soo maraya. markii uu rabo qofku dembi dhaaf in loo dembi dhaafo ayaga ayuu soo maraya. markii uu rabo qofku inuu jannada galana ayaga ayuu soo maraya. wadaadadu marka waxay ahaayeen xilliga ayada ah kaniisaddu ay calan wallaynaysay oo ay adduunku dhan haysatay. waxaan ka hadlaya Yurub baan ka hadlaya ay haysatay. wadaadku wuxuu ahaa mid wakiil ilaahay ka ah wax kastana asaga loo hoos fadhiyo. toobadda hadduu qofku toobad keenayo ilaahay uma toobad keenayo wadaadku u toobad keenaya wadaadku soo maraya. qofka haddii uu rabo in loo dembi dhaafo wadaadka ayuu soo maraya wadaadka u dembi dhaafaya. qofka hadduu rabo janno inuu galo wadaadka ayaa sabab u noqonaya. wadaadka ayaa wax kastaba oo alla xaggiisa ku saabsan loo maraya. arrimahaas ayaa marka jiray. tafsiirka noocaasa ayay haysteen qolooyinkan kiristaanka ah. arrintaas marka maxay keentay? arrintaasi waxay keentay dhibaato weyn ayay keentay. dhibaatada ay keentay baa marka idinka sheekeynaya. waxaa soo baxay culamo waaweyn oo uu ka mid yahay caalimkii astronomiga ku takhasusay iyo mathematicska xisaabta oo waddankan Bolanda u dhashay oo la oran jiray Copernicus. Copernicus wuxuu dhashay 1473 ilaa 1543 intaas ayuu joogay. Copernicus marka wuxuu xisaab ahaan u sugay
in ardadu ay tahay taabic oo ay ardadu dhulku ku wareego qoraxda dhulku inuu qoraxda ku wareego ayuu Copernicus sheegay arrintaas sidoo kale waxaa ka daba yimid caalamkii kale oo asna Talyaaniga ahaa oo la oran jiray Galileo asna wuxuu ahaa 1564 ilaa 1600 ilaa 1642 Galileo asagu wuxuu isticmaalay waliba asagu ka hormarsan wuxuu isticmaalay aaladda la dhaho telescope ayuu isticmaalay telescope markuu isticmaalay wuxuu gaaray natiijadii uu gaaray Copernicus asagu qaab riyaadiyana ama xisaab ahaan u soo saaray inuu dhulku raacsan yahay qoraxda oo dhulku qoraxda ku wareego kadib Galileo ayaa yimid Galileo telescope bahalka ay dhaan buu isticmaalay kadib asna wuxuu gaaray natiijadii uu Copernicus gaaray oo kale marka culimadaas ayaga ah waxay kala kulmeen dhibaato weyn iyo cadaab iyo dil culimadii kaniisadda ayay dhib weyn kala kulmeen waxaa lagu tilmaamay inay yihiin sixroolayaal inay yihiin mataqaanaa dad mataqaanaa khuraafaystayaal waxaasaa lagu tilmaamay hore waxaan usoo sheegnay Christianity-gu inay aaminsanaayeen dhulku inuu yahay the center of the universe inuu yahay markaska koonka inuu yahay dhulkana lagu wareego nadariyadii markaas ay aaminsanaayeen Christianity-gu ayaa cilmigii baa ka hor yimid marka oo culimadu markay wax baareen Copernicusna qaab xisaab ahaan uu soo saaray Galileona qaab telescope asoo isticmaalay uu soo saaray dhulku inuu yahay mid ku wareegaya qoraxda labada arrimood ba isku hor yimid marka labada arrimood ayaa isku hor yimid taas marka waxay keentay wadaadadii kaniisaddu inay xanaaqaan oo ay la dagaalamaan culimadii markaas ayaga saynis oo ay laayaan qayb cadaab qayb xataa nolosha ay ku gubeen okay marka waa qodobkaas oo macnaha waxa iska hor yimid arrintii aan koowaad aan sheegnay oo ah dhulku inuu markas koonka yahay iyo arrintan kala ma dhulka asagu wax ku wareego qodobkii labaad oo aan sheegnay oo ahaa in Christianity-gu uu qabo in adduunku uu soo bilowday 4004 qabla al-miilaad 4004 markay taariikhdu ahayd dhalashada nabi Ciise ka hor una adduunku dhamaanayo 4004 taariikhda miilaadiyada arrintaasna cilmigii ayay ka hortimid cilmiga sayniska ayay arrintaasna ay ka hortimid oo markii ay soo baxeen nadariyooyinkan big bang iyo waxa la midka ah iyo nadariyaadka kale oo ka sii horeeyay oo mataqaana darwinism-ka iyo waxa la mid ah nadariyaadka noocaas oo koonka fasiraya nadariyaadka noocaas waxa ay sheegeen in koonka bilowgiisu inuu aad u fogaa oo sida hadda la sheego koonka wuxuu soo bilowday bini aadan kama hadlayo bini aadanka waxaa la dhahaa 200,000 oo sano ayuu jiraa bini aadanku laakiin koonkan ka hadlaya guud ahaan marka koonka guud ahaan saynis ahaan waxaa lagu sugay in koonku uu soo bilowday 13.8 bilyan oo sano 13.8 bilyan oo sano inuu soo bilowday taariikhdaas bitaxdiid oo big bang-ka inuu xilligaas dhacay ayaa la soo yiri marka arrintaas ayada ah oo taariikhdu inuu intaas bilyaar sana ka hor inuu soo bilowday na waxay ka hor timid fikradii markaas ay wadaadadii aaminsanaayeen Christianity-ga ahaa oo ay lahaayeen 4004 ayuu soo bilowday iyo arrintan kale oo cilmiga ah ayaa iska hor yimid waa qodob labaad qodobka kale oo ayadana dhibaatada keentay oo culimadii iyo inay isku dhacaan mataqaana wadaadadii kaniisadda inay isku dhacaan nimankii santiistaha qodobka saddexaadna waxa weeyaan arrintan waasitada ilaahay iyo waxa weeye qofka waxa u dhaxeeya wadaadkana u dhaxeeya ilaahay iyo qofka wadaadkan baa u dhaxeeya taana way ka beediideen nimankii santiistaha culimada ah culimadaas ayada marka waxay iskugu jireen intooda badan xilliga ayada waliba waxay ahaayeen kuwa
sisti معناها مؤلهة إلهي جريتانك سأقل لكن ما دام علمي ساينس كها iyo waxay khuraafaadka ahaa oo ku yaalay kitaabka asaga oo yani kristiyaanitiga ay iska hor yimaadeen taasi waxay keentay in la kala fogaada keentay hadda Galileo wuxuu ahaa nin mu'alliha ilaahay jiritaankiisa uu ogolaa Copernicusna mu'allih buu ahaa oo ilaahay jiritaankiisa uu ogolaa labadaba way ogolaayeen laakiin cilmiga sayniska markay wax baareen ogaadeen ayaa waxay sugeen dhulku inuu ku wareego qorraxda aysan qorraxda dhulku wareegin arrinta marka waxay keentay kala fogaanshihii wadaadada iyo culimadii santiistaha inay kala fogaadaan wadaadadiina markii ay dagaal iyo cunfi iyo dhibaato ay la yimaadeen ayaguna waxay arrintaasi keentayba in diintii oo dhanba marka ayada ay dad badan oo kamid ah ay diintiiba tuuraan oo dhahaan anagu diin maba aaminsanin anagu diin maba aaminsan ba inay dhahaan marka arrintu waa arrintan ilhaadka xilligaas Oroba ka dhashay ama Yurub ka dhashay waa arrin asbaabtaas iskala weeyaan waa arrin asbaabaha hadda aan soo sheegnay iskale okay marka aynu ka hadlayno marka diin markaynu ka hadlayno diintu waxyaalaha asaasiga ay ka hadasho maxay tahay waxyaalahaas asaasiga diinta u aana cilmigu ma fasiri karaa oo ma tilmaami karaa diinta waxyaalaha asaasiga u ah oo ay ka hadasho waa saddex shay la dhageysta shayga koowaad waxa weeye in koonkani uu iska leeyahay khaaliq abuuray koonku inuu iska leeyahay alla abuuray inuu iska leeyahay diintu saasay ka hadasha waa qodob koowaad qodobka labaad waxa weeye in koonku uu iska leeyahay gaayo macnaha koonkan in loo abuuray ujeed in loo abuuray waa arrinta labaad oo mataqaanaa diintu ay ka hadasho koonkan maxaa ujeedka loo abuuray maxaa weeye ujeedka loo abuuray waxa weeye bini aadamku inay tacmiirka iyo cibaadada sooma in la camiro ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun koonku inuu iska leeyahay qaayo iyo ujeed loo abuuray arrinta saddexaad oo diimuhu ay ka hadlaan waxa weeye koonku inuu iska leeyahay nidaam akhlaaqeed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala asagu nidaamka akhlaaqda u xadiday nidaam akhlaaqeed oo ilaahay xadidayo oo garwadeyn ka yahay inuu koonku iska leeyahay saddexda qodob marka aan imaano marka saddexda qodob sayniska ama cilmigu ma fasiri karaa shaqana ma ku leeyahay arrimaha noocaas mise arrimaha noocaas cilmigu shaqo kuma laha bal midda kooda aan imaano midda kooda diintu ay ka hadasho maxaa weeye in koonku ilaahay iska leeyahay saynisku ilaahay jiritaankiisa inuu jiro iyo inuusan jirin midna waxa weeye kama hadli karo ma soo karo ilaan saynisku muxuu la tacaamulaa saynisku waxa uu la tacaamula waxay tahay waa maadada iyo daaqada waa material and energy labadaas uu la tacaamulaa waa energy-ga iyo material-ku la tacaamulaa hadda ilaahay energy-na ma ahan material-na ma aha shuqulna kuma leh marka intii cilmigu u yaqaanay ilaahay waa ka baxsan yahay intuu cilmigu yaqaanay ilaahay waa dhaafsan yahay saa darteed saynisku ilaahay mana diidi karo mana suu karo mana diidi karo mana suu karo bale wuxuu saynisku alla u noqonayaa muqaddama suqra waxay dhahaan marka mantiqa laga hadlayo marka mantiqa laga hadlayo waxaa jira muqaddama kubra iyo muqaddama suqra bal aan fiirino muqaddimooyinkan saynisku ilaahay ugu noqon karaa muqaddama suqra see ugu noqon karaa muqaddamada kubrada waxa weeye ama muqaddamada horodhaca weyn iyo horodhaca yar saynisku alla wuxuu noqonayaa horodhac yar buu noqonaya ilaahay jiritaankiisa qayb buu ka sugayaa oo horodhac yar buu noqonaya bal aan taa macnayno muqaddamada weyn ama horodhaca weyn waxa weeye kullu shay'in lahu bidayatun fi lwujud falahu sabab shay kasta oo adduunkan jooga oo iska leh bidaaya iyo meeluu ka soo bilowday wuxuu iska leeyahay sabab buu iska leeyahay
ilaa shay kasta oo waxa weeye meel uu ka soo bilowdo iska leh sababka waxa loo baahan yahay bilaabay in la helo yaa bilaabay sheegan way ahayd sheegan waa isla ognahay inuu soo bilowdo yaa bilaabay koonku marka bidaayo iska leeyahay gaaladii iyo adduunka oo dhan iyo mataqaana saynis oo dhan wuxuu sugayaa koonku inuu bilow iska leeyahay oo uu bilowday 13.8 bilyan oo sano ka hor big bang markuu dhacay marka maadaama koonku uu bidaayo iska leeyahay laazim inuu sabab ka dambeysay bidaayadaas ay jirto bilowgan yaa bilaabay waxaan markay bilaabayeen yaa bilaabay taas marka waa muqaddamada hore weeyaan muqaddamada weyn baa taal dhahaa marka muqaddamada yar cilmigu marka wuxuu noqonayaa ilaahay sugitaankiisa ayuu wuxuu u noqonayaa muqaddamo yar buu u noqonayaa oo see u noqonayaa alkawnu lahu bidaayatun fi lwujuud cilmigu wuxuu qirayaa inuu koonku iska leeyahay bidaaye iyo meel ka soo bilowday samare cilmigu wuxuu qirayaa inuu koonku bidaaye iska leeyahay oo waqti uu bilowday muqaddamada weyn maxay ahayd shay kasta oo bilow iska leh sabab ayaa keenay shay kasta oo waxa weeye bilaamay waa inay jiraan wax bilaabay koonku marka wuxuu iska leeyahay bilow buu iska leeyahay sida cilmigu uu qeexayo cilmigu marka muxuu noqonayaa ilaahay sugitaankiisa ayuu muqaddamo yar u noqonayaa natiijadu marka maxay noqonaysaa waa natiija maxay noqonaysaa alkawnu lahu sabab koonku inuu sabab iska leeyahay marka cilmigu ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu diiday iska daaye ilaahay jiritaankiisa ayuu wuxuu u noqonayaa muqaddamo suqra ama horudhac yar u noqonayaa shay kasta oo la bilaabay waxbaa bilaabay koonku marka bilow buu iska leeyahay noo caddeeyey sayniska marka maadaama koon kasta bilow iska leeyahay muqaddamada kubradana ahayd shay kasta oo bilow iska leh sabab baa bilaabay natiijadu maxay noqonaysaa alkawnu lahu sabab alkawnu lahu cilla koonku inuu iska leeyahay maxay cillad iyo sabab ka dambeysay oo bilowday marka arrinta koowaad oo ah oo diintu ay ka hadasho ah adduunkan inuu alla abuuray saynisku wuuba saacidayaa oo wuu caawinayaa koonkani inuu alla abuuray oo muqaddamo yar buu u noqonaya hordhac yar buu u noqonaya taa waa qodobka labaad wuxuu yahay koonkan inuu iska leeyahay gaaya iska leeyahay macnaha koonkan in loo abuuray ujeed loo abuuray limaadaaba meesha taala maxaa koonkan loo abuuray taana saynisku ma jawaabi karo arrin uu saynis ka jawaabi karo ma ah habeenka dhexda habeen horaan ka soo hadalnay arrinta noocaas qofka u baahan dib ugu noqon kara muxaadarada horaan kaga hadlaynay ilxaadka iyo caqliga oo raggooda u waaweyn baa sheegaya waxay leeyihiin maxaan xaggan u joognaa limaada naxnu huna adduunkan maxaan u joognaa saynisku ma jawaabi karo adduunkan maxaan u joognaa waay baan adduunkan u joognaa waay baan noloshan ugu noolnahay saynisku ma jawaabi karo waa arrinta labaad oo diintu ay ka jawaabayso diintu maxay leedahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun insi iyo jinniba uma abuurin ilaahay aniga iyo caabudaan maahane waxa loo abuuray koonka nolol kana maxay tahay waa cibaada ayada kale waxay caddaynayaan tacmiir cibaado iyo tacmiir labadaba inaan camirno koonka aan cibaadaysanana marka arrinta labaad oo diintu ay ka hadasho oo ah gaayada iyo yoolka koonkan loo yimid saynisku kama jawaabi karo shuqul iyo shaqana kuma leh waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye cilmigu waxaan ka wadaa caalamka aanu ku nool nahay diintu waxay sheegaysaa inuu yahay mid u habaysan oo alla u diyaariyay system akhlaaqeed ama nidaam akhlaaqeed nidaamka akhlaaqeedna cidda xadidaysa oo tilmaamaysa waa allah subxaanahu wa tacaala yani marka diinta waxay ka hadasha waxa weeye akhlaaqda ayay ka hadashaa science marka akhlaaqda muxuu ka sheegi karaa no science marka akhlaaqna shuqul ma law science ma sheegi karo khayr iyo shar ma sheegi karo akhlaaqna ma u sheegi karo saddexdaas qodob oo diintu ay ka hadashay science-ku shuqul kuma lahaw waana asaasiyaadka diinta weeyaan koonkan inuu alla iska leeyahay science-ku inuu diido iska daaya bale muqaddamo yar hordhac yar buu u noqonaya oo koonku maadaama bilow uu sameeyey waxaa laga garanayaa bartaas shaygan maadaama bilow uu leeyahay in sabab bilaabay uu jiro
saynisku wuu saacidaya muqadimada khibrada wuu saacidaya si natiijo loo helo oo ah koonkan inuu sabab iska leeyahay qodobka labaad oo ah koonkan qaayada loo abuuray maxay tahayna saynisku ma hadli karo qaayada loo abuuray waa cibaadada inaan cibaadayso salaadii soonka xajka qodobka saddexaad oo ah nidaamkan akhlaaqiga ah oo diintu ka hadlayso akhlaaqda iyo wax ku saabsanna saynisku asna shuqul kuma leh saddexda marka arrimood oo asaasiga ah oo diintu ay ka hadasho saddex arrimood oo saynisku uu fasiri karo ama ka hadli karo ma ah weeyaan marka maadaama saddexdaas arrimood oo diintu ay ka hadasho saynisku uusan shuqul ku lahayn arrintan ah diinta iyo saynisku waa iska hor imaanayaan oo mulxidiintu ay tarwiijinayaan maxay arrintan suuqa la geliyey oo ah sayniskii iyo diintii waa iska hor imaanaya maxay tahay ila saddexda arrimood oo asaasiga ah oo diintu ay ka hadasho sayniska hor imaanaya arrinta mushkiladu xagee ka jirtaa mushkiladu waxay ka jirtaa waxay tahay tafsiirkii khaldanaa oo diinta kiristaanka ay bixiso mushkiladu ka imaatay anaga diinteena islaamka tafsiirka ay bixinayso ay koon ka bixinayso tafsiir caqliga iyo cilmiga midna ka hor imaanaya maaha ee mushkilada waxay ka timid tafsiirkii khaldanaa oo reer galbeed oo christianity-ga uu koon ka bixiyey oo hadda aan soo sheegaynay oo saddex waxyaalada ugu muhiimsanaa oo keentay yurub in badan oo ka mid ah in mulxidiin noqdaan waa arrimaha hadda aan ka soo sheekaynay oo ah inay koonka ay dhaheen dhulku waxa weeye waa sugan yahay ma wareego anaga diintan islaamka waxay sheegaysaa dhulku inuu wareego sheegaysaa diintan islaamka waxay sheegaysaa dhulku inuu wareego ayay sheegaysaa yukawiru leyla cala nahaar alla habeenkii iyo maalintii ayuu saa iskugu wareeji waxaa la sheegay shayga la wareejinaya la sheegay laakiin shayga lagu wareejin lama sheegin maadaama shayga la wareejinayo uu wareegsan yahay shayga lagu wareegana inuu wareegsan yahay waa laazim weeyaan dhulku marka waa wareegsan yahay intaas ayadda sheegaysa sidoo kale aayaddu waxa ay sheegaysaa maadaama shaygan la isku wareejinayo inay wixii ay wareegayaan ayadana laga qaadanaya aayado kale quraan ayagana alla wuxuu sheegay watara al-arda taxsabuha jaamidatan وهي تمر مر السحاب وترى الجبال يعني كاخلد وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب بوري waxaad u malaynaysaa inay taagan yihiin sida daruurtu korkeena u marto u soconayso bayuun u soconaya marka maadaama buuri dhulku hayay alla uu leeyahay waa soconayaan dhulku xagee joogaa marka dhulku marka inuu wareeyo quraankan uu sheegayaa marka totally science-ki iyo quraanka iska hor imaan meesha christianity-ga iyo ay iska hor yimaadeen maxay cilmiga ay iska hor yimaadeen christianity waxay sheegeen in 4,004 adduunku soo bilowday quraankeena time xadidan kuma taalo oo uu leeyahay xilliga soo bilowday kuma taalo ila adduunkan ila inuu koonka abuuray ilaahay wuu sheegay laakiin xilliga iyo timekaas abuuray ayad tahay ma jirto marka saa la elay dadku bini'aadamku intay dadaalaan hadday la yimaadeen hadday ogaadeen arrinta noocaasa in xilliga uu bilowday arrintaas arrin diinta ka hor imaanaysa islaamka maaha arrintan kale oo ah wadaadku inuu asaguna bini'aadamkii ilaahay u dhexeeyay diintana isku malaha rasuulka waxa lagu lahaa wama anta calayhim bimusaytir ma tihid mid ayaa saytaranaya lasta calayhim bijabbaar dictator ha ku noqonin in calayka ila albalaaq nabi maxamed baa lagu lahaa gaarsiin bes baa dushaada ahaatay diinteenu marka male waxa la dhaho waasito ama qof ilaahay kaa xiga ma jiro weeyaan adiga ilaahay cid kaa xigta male waa laga yaabaa xilligada hadda lagu jiro dad aad arkaysid aad qaabka christianity u dhaqmayeen oo kale u dhaqmaya oo islaamka dhexdiisa aad arkaysaa laakiin arrintaas diinta ma qabtaa ma qabto wax kale ay la yimaadeen wax ayaga u noqonayo laakiin diinteena nabi maxamed bay canaanay waxay leedahay lasta calayhim bimusaytir aduu xoog kuma lehin ya gaarsiin maya wax kale dushaada ma ahaanin marka saddexdaas arrimood ay isku hor yimaadeen christianity-ga iyo science-ku ay isku hor yimaadeen saddexdaba annaga waa xalinay oo diintan islaamka saddexdaba way xalisay weeyaan okay marka saa la adligeed diinta islaamka iyo science-ku iska hor imaanayaan okay aan ka sii socono cilmiga marka aynu ka hadlayna marka cilmiga science-ka macnaha qolooyinkan
qolooyinkan yani waxay dhahaan waxa loo yaqaano alcilmawiya waxay dhahaan baa jira alcilmawiya santizi waxa la santism bale santism santism waxa weeye alcilmawiya macnaha waxay qabaan qolooyin ka mid ah hadda mulxidiinta waxay ku leeyihiin wax kastaba cilmigaa fasiraya koonkan oo dhan wax kale wax loo baahan yahay ma jirto wax kastaba cilmiga ha looga dambeeyo asaga everything fasiraya asagaan ka sugayna inuu noo fasiro marka waa aniga hadda idiin sheegayo saddexda arrimood oo asaasiga oo diintu ay ka hadasho saddexduba cilmigu ilaa hadda ma uu fasiri karo arrin uu fasiri karo ma aha weeyaan barragooda u wawan aan kuusoo qaado ayagoo bal arrintaa ka hadlay laftirkeeda hadda ninka la dhaho Richard Dawkins wuxuu leeyahay laysa lilcilmi ayu sabiilin linaqdi wujudi kaa'inin acla cilmigu uma sugnaanin buu ku leeyahay cilmiga wado uu ku burin karo in uu jiro kaa'in acla macnaha jiro weyn ama sarreeya inuu jiro ilaahay jiritaankiisa cilmigu ma diidi karo yaa odhanaya waa mulxid weeyaan waa Richard Dawkins wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa la dhaho edifilis jabline bales jabtarka ama safxadda pageka 149 edifilis jabline wuxuu ku leeyahay laysa lilcilmi ayu sabiilin linaqdi wujudi kaa'inin acla in kaa'in sare uu jiro ya oo allah ah cilmigu awood uma laha uu ku buriya arrinta ayada waa in mulxida weeyaan marka arrintan ay leeyihiin cilmiga wax kasta fasiraya cilmigu awood uma laha ilaahay subxaanahu watacaala fasiridiisa mana diidi karo kamana hor imaan karo bale wuu saacidaya alla jiritaankiisu saacidaya waa saan hore usoo sheegnay saasoo kale wuxuu leeyahay ninka la yidhahda Lawrence Krauss asna waa ragga weyn buu ka mid yahay oo mulxidiinta wuxuu leeyahay ina najaaxa alcilmi laa yacni annahu yashmul كامل الخبرة الفكرية الإنسانية وحكولي قوليسك علمه وقوليستي أنا تاسك كما دقما لما خبرات دا أما فكر كبني آدم قوتن بإنه علمه وحوي كوبي كرو وسيوه وحيري العلم لا يجعل الإيمان بالله من المحالات علمه كما دقما إلهي إلا الرمي وح مستحيل كما دقما يجب أن نعترف بهذه الحقيقة ولي وإن الحقيقة داس أنقر سنانا وإن نقول حيدا نكاس علمه مستحيل أما وحن جرين كما دي كرو ألا إن الرمي ألا إن الرمي علمه كما دي كرو مستحيل وحولي يجب أن نعترف بهذه الحقيقة وحواجب نقول أن الحقيقة داس أنقرنه وأن نتعايش معها حقيقة إن الله نولانه سمعت لكن ملحدو أود بأمليد بألا تكون دي دواي علم الله علمي الله علم وأود وما بوله الله سبحانه وتعالى jiritaankiisa inkaro raggeedu waa weynaa baa saarahayo mulxidiinta okay marka hadaynu kusii socono arrinta waxaa laga yaabaa rag badan oo inay hadda dhahaan ragga adduunka hogaaminaya ama ragga cilmiga looga dambeeya ama waxa noocaas oo dhan kulli mulaaxida weeyaan ama mulxidiin wey ama qofka hadduu cilmi barto mulxid buu noqonaya علم الساينس هذا برضه ملحد ما نقنيه بحاول حاجه كده arrinta waa khuraafaad waxaan soo qaadanaynaa raggii ugu horreeyay oo hawshan horta science ka bilaabay ilaa rag hadda xilliga casriga hadda joogan fiirayna kuwa ilaahay jiritaankiisa ogal iyo kuwa diidan yaa horta badan kuwa ilaahay jiritaankiisa ogal iyo kuwa diidan yaa badan aan ka soo bilowno raggii ugu horreeyay Newton أبو إسحاق نيوتن يحوار ما هذا تاريخ أبو إسحاق نيوتن وهو تيستي بوهاو تيستي محن كوضا هو مؤلف إلهي جريتان كي سووا أقلاو إلهي هو أدون كان الله أبو ريبو لهاو ملحد ما هين صاولا صعودا علمك وقهر ماني إلهي جريتان ورجع علمي وكوب بالفير محايا هين هو إلهي جريتان كي سأمي سنباين أبو إسحاق نيوتن ونيوتنس لو هذا الوردقو يا iskuulada xataa lagu dhigo ninkaas wuxuu ahaa nin mu'alliha oo thisti ah oo ilaahay jiritaankiisa aaminsan buu ahaa
Kepler ragga waaweynaa ayadan waxa uu ka mid ahaa scientistiyaasha Kepler asana wuxuu ahaa mu'allif ahaa Copernicus aan hadda soo sheegnay oo dhulku inuu wareego xisaab ahaan ku sugay Copernicus asana wuxuu ahaa nin mu'allif oo ilaahay jiritaankiisa rumaysan weeyaan Galileo muxuu ahaa Galileo asana wuxuu ahaa waa ninkii asaguna telescope inta qaatay dhulku inuu wareego telescope ahaan ku sugay Galileo asana wuxuu ahaa all of these are theists raggaan soo sheego dhan waa raggii bilowga sayniska bilaabay kulligoodba alla jiritaankiisa ku rumaysan bay ahayd bal hadda aan nimaana marka casriga hadda modern yani sayniska aan nimaano yani sayniska hadda casriga ah oo hadda aan joogno bal ragga hogaamiye horta u nimaano raggaas maxay ahaayeen okay raggii ku guulaystay Nobel Prize dhammaantood intooda badan Nobel Prize ragga qaatay intooda badan waxay ahaayeen wa ilaahay subxaanahu wa ta'aala jiritaankiisa ogal ayay ahaayeen yaa ka mid ragga ayaga ah Einstein baa ka mid Albert Einstein muxuu ahaa Albert Einstein wuxuu ahaa mu'allif ama theist buu ahaa wuxuu ahaa mid ogal ilaahay jiritaankiisa ogal buu ahaa mulxid maahay waana ninka iskala dee nadariyada la dhaho nadariya nisbiya relativity ninka iskala weeyaan raggan hadda la dhaho the group of scientists of quantum raggan quantumka yani quantum science hadda quantumka loo yaqaano hadda dee adduunka hadda haystaba sayniska noocaana ragga hogaamiya maxay horta yihiin ma isweydiiso scientists of quantum ma isweydiiseen yaa ka mid ah Max Planck baa ka mid ah Heisenberg baa ka mid ah Niels Bohr baa ka mid ah ragga maxay horta ma isweydiiseen Max Planck waa theist ilaahay jiritaankiisa u aaminsan Heisenberg oo ninka weyn aad garanaysaan Heisenberg filosofka weyn waxaan ka wadaa waa scientist iska weyn adow oo quantum ragga ugu sareeya waa group of quantum baa la ragga science-kan quantum ka la dhaho quantum physics ka la dhaho ragga hogaamiyo ka mid yahay Heisenberg waliba Heisenberg waa ninka cajiibka ah waxa laga hayaa hadal aad u cajiib badan baa laga hayaa waxa loo yaqaanaa the leader of the second quantum revolution waa the leader of the second quantum revolution يعني quantumkii labaad thawradii quantumkii labaad revolutionka noocaas ninkii hogaamiyihiisa weeyaan kacdoonkii sayniska loo yaqaano quantum physicska kacdoonkiisi labaad ninkii hogaaminayay maxaa weeye waa Heisenberg muxuu yidhi maquulo cajiiba laga haya Heisenberg wuxuu leeyahay cilmiga wuxuu ku leeyahay bilowgiisa hore markaad koobkiisa hore aad dhintid cilmiga ya waxay kaa dhigaysaa ku leeyahay mulxid marka hore waxaa laga yaabaa intaad khalkhashid oo xogaa wax yariis intaad dhimisid hadhow su'aalo badan isweydiiso tira ilaahay ma jira tiraad wuxuu yidhi walaakinaka xataman satajidu ilaaha yantadiruka fi qaaci lka's laakiinse waxaa waajib u yidhi inaad ilaahay aad ka heshid koobka salkiisa asoo ku dhex fadhiya manaha kelmadda qaabkaas asoo u yidhi laakiin wuxuu ka wadaa iimaanku koobka salkiisa kugu sugaya marka kullama cilmiga aad sii baratid buu leeyahay aad ku sii tacamuqdid waxaad ilaahay waxaa ku sii sugmaya oo ku sii awoodeysanaya adilada ku tusanaysa ilaahay jiritaankiisa caza wajalla iimaankaagu markasta uu sii xoogeysanaya rumaynta allah subxaanahu wa tacaala aad rumaynaysa markasta uu sii xoogsanaysaa yaa saa odhanaya waa Heisenberg waa the leader of the second quantum revolution ninka hogaaminaya ayaa saa dhahayo marka Heisenberg aa maqashaan waa nin mu'allih ilaahay jiritaankiisa aaminsan okay ka socoto ragga waxaa loo yaqaano neuroscience cilmiga la dhaho cilmiga asaabka la dhaho ragga hogaaminaya oo aasaasayaasha u ah kulligoodba waxa weeye waa mu'allih ilaan fiiri cajabul cajaa'ibka fiiran yani cilmigan ku tacalluqa acsaab iyo neerfayaasha ilaan meeshan waxaa ku jirta waa
يعني عجيب wax cajiib oo la yaab leh ku jira wey billions of khaliyo balaayiin sel iyo xataa isku imaanshayaasha meelaha iskaga imaanayaan ayaguna billions ah waxa qofku cajaa'ibta markuu arko ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaana alla khaaliqa oo xakiima inuu abuuray ayuu garanayaa walidaasaa darteed raggan neuroscience-ka hogaaminaya oo dhan oo aas-aasay oo dhan waa rag kulligood fiista awood oo ilahay jiritaankiis qarsan weeyaan waxaa jira kitaab la dhaho 100 years of Nobel Prize 100 years of Nobel Prize boqolkii sane ee Nobel Prize-ka yani kitaabkaas wuxuu ka hadlayaa Nobel Prize-ka ilaa hadda 100 sano u jira moogta inta mataqaanaa la qaadanayay oo dadku ay qaadanayaan hadda 1900 kasoo bilowdo meelahaas kasoo bilowdo ilaa hadda aan joogno kitaabkaas marka wuxuu ka sheekeynayaa 100 years of Nobel Prize raggii boqolkaas sano Nobel Prize soo qaadanayay boqolkaas sano raggii Nobel Prize soo qaadanayay ayuu kitaabkaas ka sheekeynaya marka muxuu leeyahay dadka helay buu leeyahay jaa'izada ama awaadka Nobel Prize-ka bila sharafta Nobel Prize-ka la dhaho oo adduunka laga bixiyo oo dadka khatarta la siiyay ku takhasus sayniska meel sare ka gaaray ama yani meelaha adduunka soo kordhiyo kala siiyo ragga helay buu ku leeyahay marka Nobel Prize-ku boqolkiiba 8 waa ihsaa'iyad la sameeyo waa statistics la sameeyo weeyaan kitaabkaas statistics la sameeyay buu soo bandhigaya oo wuxuu leeyahay ragga Nobel Prize-ka qaatay ragga Nobel Prize-ka qaatay boqolkiiba 87 waa testis weeyaan buu leeyahay waa kuwa ilaahay jiritaankiisa rumaysan marka yaan lagu waabsan walaale yaan lagu waabsanin meesha ihsaa'iyad baa yaalla statistics waa meesha waa taala ninku dhahaya ragga kulli ragga cilmiga sayniska waxa weeye ragga madaxda oo hogaaminaya kulligood waxa weeye malxidiin weeye saa darteed cilmigu wuxuu diidaya ilaahay jiritaanka waa been 87 boqolkiiba ragga Nobel Prize-ka qaatay sida kitaabkan uu sheegayo waliba ihsaa'iyaad la sameeyay statistics la sameeyay 87 boqolkiiba waa kuwa ilaahay jiritaankiisa aaminsan maxaa soo haray 13 bas baa soo hartay 13 bas baa soo hartay marka qofku ku dhahaa waxa weeye ragga cilmiga sayniska hogaamiya malaaxida u badan waa been ihsaa'iyaad baan anagu haynaa ihsaa'iyaad la imo statistics baan haynaa aduu keenso statistics ma keeni karaa 87 boqolkiiba ragga Nobel Prize-ka qaatay 100 sano maalintii la bilaabay laga soo bilaabay hadda 87 boqolkiiba rag qaatay waa rag ilaahay jiritaankiisa aaminsan weeye 13 bas baa soo hartay faqad marka cilmiga saynisku taliba inuu ayido ilaahay jiritaankiisa ma komar maanay marka xagga waxa ku garanaysaa in ay ku fashilmeen meesha ayada nimanka mulxidiinta inay ku fashilan yihiin ayaa bartaa ku garanaysaa way cilmigu alla ma diidi karo weeyaan akhlaaq ma diidi karo weeyaan koonka waxaan u joogno qaayada ma diidi karo weeyaan waxaasoo dhan maadaama cilmigu saynisku uusan diidi karinin ya taa darteed fikradda ilxaadka meesha waa ku baabaaday fikradda ilxaadka meesha waa ku baabaaday marka cilmigu wuxuu ka hor imaanaya ilxaadka ka hor imaanaya cilmigu ilxaadka wuu ka hor imaanaya cilmigu ilxaadka wuu ka hor imaanaya marka waxa kaliya ay maanta ayagu ilaan firi fikrad kale maanta ma haysta waxa kaliya maanta ay dhahaan waxa weeye cilmiga wax kasta fasiri doona cilmigana qudrad iyo awoodba uma leh hadda saddexda waxyaalood soo sheegay oo ah ilaahay jiritaankiisa inuu sugo inuu diido koonka waxa loo joogo inuu sugo inuu diido maxaan uu koonkan u joogno ma sheego nidaamkan akhlaaqda ah oo insaanku ay sheegayso mana sugo karo mana diidi karo see marka diin ku diidaa marka ilaan diinta asaasiyaadkeeda waa saddexdaas weeye mulxido maxaa diinta ku diidaa marka ilaa cilmi intaa diidaya ma jire diinta maxaad ku diiday akhlaaqda maxaad ku diiday ilaahay jiritaankiisa maxaa ku diiday koonkan alla inuu noo keenay qaayada ah cibaadada maxaa ku diiday waayo cilmiga isku dhejinaysay saddexda mana sugo karo mana diidi karo bal inuu xoogaa yara ayido bay u badanta marka xagga waxaa ka garanaysaa in saynisku diinta uu saaxiib leeyahay
ولذا صدرت بعض أركيسا رجع أقوى أو سنتيستها يعني intooda badan ay yihiin kuwa alla jiritaankiisa qareeyo waliba science-ka qaybihiisa waaweyn quantum physics baan sheegayna rag u waaweyn oo hogaaminaya kulligood waa rag ilaahay jiritaankiisa qarsoon neuroscience-ka rag ugu badan oo hogaaminaya waa rag alla jiritaankiisa qarsoon ixsaa'iyadsan waxaan keenay 87% inay yihiin dadka Nobel Prize qaatay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala jiritaankiisa rumaysan okay marka waxa meesha ku burburay marka dacayada raqiiska ah oo ah science baa kan kana science baa wax kasta science baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala meesha ka saaray waxaas baa meesha ku burburayso waxaas marka waa laga sheego iyo turfatornimo waa been weeyaan okay arrinta haddaan sii wadno waxaa jira hadda waxay dhahaan arrin ay ka hadlaan baa jirta oo ah su'aal ahaan oo kale ninka la yiraahdo Stephen Hawking oo kale wuxuu ku leeyahay markuu ka hadlayo falsafada kitaab uu iska leeyahay uu leeyahay dhimashadii falsafada marka falsafadu iyo caqliga science-ku maadaama ilaahay isku diidi karin uu soo karin waxa ilaahay lagu sugay maxaa weeye caqliga weeyaan oo logiga weeyaan marka dadkan nimankan ayaga marka oo mulxidiinta say marka ay ula dagaalamaan falsafadii ayay waxay sameeyeen dacayad tira badan hadda ninka asaga ah oo la dhaho Stephen Hawking kitaab uu alifay uu leeyahay falsafadu waa dhimatay khalaas cilmiga baa meel kasta galay kan weeye falsafadu lama baana dharrag hada saan ogsoonaayna cilmiga oo dhan muxuu ka bilowdaa cilmiga oo dhan wuxuu ka bilowdaa falsafadu ka bilowdaa bal xagaas wax yar baan rabaa inaan xogaa idin tusaaleeyo cilmiga waxaa ka horreeya iimaan baa ka horreeya cilmiga maxaa ka horreeya iimaan baa ka horreeyo marka hore inaad wax badan rumaysaa saad cilmi oshi saad aqoon iyo waxa uga sheekaysid marka hore waa inaad wax badan rumaysaa rumaynta waxa la rumaynaya waxaa weeye haddaba waxaan la arkayn oon yani lagu samayn karo laboratory aan la gelin karin waxaad rumaynaysid laboratory laguma samayn karo caqli ahaan waa ku sugi kartaa laakiin laboratory ya laab ma gelin karti weeyaan marka toos waxay uga hor imaanaysaa maxay cilmiga laftirkiisa tajribiga ay ka hor imaanaysaa ilaa waxay dhaheen cilmigu waa itusoo itaabsi soo maydhin ha cilmigan itusoo itaabsi ah maxaa horta ka horreeya iimaan baa ka horreeya iimaanku ma itusoo itaabsiga waa maya iimaanku ma itusoo itaabsiga waa maya falsafada maxaa ku diidaysaa marka ya falsafada iyo mantiqa iyo caqliga maxaa ku diidaysaa marka maadaama cilmiga dhammaan wuxuu ku dhisan yahayba uusan itusoo itaabsi ahayn oo muqadamaad badan iyo waxyaala badan ay ka horreeyaan inaad rumaysid tusaale baan soo qaaday hadda kasoo qaadoo kale madaxaa ku cuncunay madaxaas haddaan shayban kasoo qaadayna madaxaasaa ku cuncunay madax markuu ku cuncunay waxaad u baahan tahay muqadamaad tira badan marka hore inaad sugtid madaxu inuu ku cuncunayo wax badan baa ka horreeya waxaana wax xaqiiqa inay yarto wax badan baa ka horreeya kow waxaa ka horreysa horta macrifadu iyo ogaanshuhu madaxu inuu cuncunay ma wax suuragala mise ma ah oo barta waxaa soo gelaysa macnaa falsafadii shakiga macnaha waxaan ma wax yani suuroobi karaa mise ma suuroobi karaan horta wax suuroobi kara ma yihiin mise ma suuroobi karo okay marka cilmigu ma ogaan karaa ma la ogaan karaa in aan dareemayo xoogaa يعني dareen aan fiicnayn ila madaxu markuu xoogaa dareen aan fiicnayn ma dareemaysaa soo ma la ogaan karaa inaan dareemayo dareen aan fiicnayn oo suurtagal ma tahay arrinta in la ogaado mise lama ogaan karo marka hore waa inaad tiraa ha waa la ogaan karaa waa inaad saa rumaysaa waa inaad rumaysaa in la ogaan karo maxay in madaxu ku cuncunay waa inaad rumaysaa in la ogaan karo in madaxu ku cuncunay waa arrin iimaani ah arrintan iimaaniga marka ma ahan arrin inta laab lageeyo lagu tijaabin kara maaha haddaad tiraadid lama ogaan karo haddaad tiraadidna de khalaas madax kuma cunay meesha kasoo baxayso marka hore waa inaad rumaysaa in la ogaan karo in madax ku cunay waa qodob
arrinta labaad waxay tahay waa inaad haddana rumaysaa inuu jiro waxa loo yaqaano wujuud khaariji. wujuud khaariji maxaa weeyaan cuncunkan marka laga tago cuncunku inuu iska leeyahay yacni wax ka baxsan oo ah meesha cuncunaysay. cuncunkan muxuu ka imaanayaa waxaan ka baxsan buu ka imaan. cuncunku waa shucuur, waa dareen. dareenkan muxuu ka imaanaya waxaan ka baxsan buu ka imaanaya oo ah madaxiidii madaxii iyo gacantii mataqaana ku xuqaysay. gacanta iyo madaxa labaduba waa laba shay oo ka baxsan maxay cuncun ka baxsan weeyaan. marka waa inaad rumaysaa maxay inuu jiro waxa la dhaho wujuud khaariji, wax khaariji ka ah cuncunkan inay jiraan. okay, marka wujuudkan khaarijiga laftirkiisa waa waxa rumaynaysa weeyaan. haddaad tiraahdo wax madaxana ma jiro yani xaqiiqa wax lama jirto haddaad tiraahdo oo tiraahdo yani farana ma jiraan mataqaana madaxna ma jiro ma rumaysan. marka waa inaad rumaysaa, waa rumayn bay ka imaanaysaa. waa inaad rumaysaa inuu jiro maxay madaxana inuu jiro, farahan waxa weeye aad ku xuqaysan ay jiraan oo wax ka baxsan ah cuncun ka baxsan. waa rumayn. rumaynta ayada marka wax la gelin kara ma. okay, qodobka saddexaad waxay tahay waa inaad ku kalsoonaataa xawaastii ama dareemayaashii kusoo gudbiyey arrintan ah cuncunka. ilaan dareemayaasha kusoo gudbinay maxay tahay? dareemayaasha soo maahayn waa taabashada, haye waa urka, waa aragga, waa maqa, soo maaha. marka dareemayaashan kusoo gudbinaya inay run sheegan waa inaad rumaysaa. haddaad tiraahdo dareemayaashida kuma kalsooniba, ya dareemayaashida kuma kalsooni haddaad tiraahdo khalaas macnaha waxba dhic bay ka dhigantahay. maxaa ka horey marka arrinta waxaa ka horey rumayn baa ka horeysa. dareemayaashan waa inaad rumaysaa inay run sheegayaan. dareemayaashan kusoo gudbiyey khabarkan asaga oo ah in meeshaas ku cuncunayso, cuncun uu jiro. dareemayaasha waa inaad rumaysaa. rumaynta ayada marka lama gelin karaa, waa lama gelin karo. okay, waa inay jirto, waa sidoo kale waa inaad rumaysaa caqligaaga, waa inaad rumaysaa. caqliga maxaa ka wadaa? waa inaad rumaysaa caqligan fasiraya shaygan cuncunkan inuu yahay cuncun xun. ila cuncunku waa shay xun soo maaha. caqligu isla markiiba muxuu fasirayaa cuncunkii uu fasiraya wuxuu waa shay xun, inuu shay xun yahay ku fasiraya. marka fasiraadaas caqligu uu ku fasirayo cuncunkan inuu shay xun yahay waa inaad rumaysaa. ila intood waliba waxaan mataqaana shucuurkan aad dareemayso cuncunkaa waa wax xun soo maaha. okay, caqliga marka isla markiiba cuncunkaasaa dhacay, caqliga wuxuu ku fasiraya wax qaab daran waxaan inay yihiin. marka waxaan wax xun inay yihiin caqligu maadaama uu ku fasiray tafsiirka caqligu ka bixi waa inaad rumaysaa. caqliga waa inaad kalsoonaataa. okay, ayadana waa rumayn weeyaan. waa rumayn la rumaynaya caqligii resultiga uu ku siiyey ama jawaabta caqligu uu ku siiyey oo ah cuncunkaasi inuu mataqaana wax xun yahay waa inaad rumaysaa. waa rumayn. rumayntaasna lama gelin karo. okay, sidoo kale waxaa waajiba inaad ku kalsoonaatay qaanuunka sababiyada. oo maxay tahay? cuncunkan waxbaa keenay sooma. cuncunkan sabab baa keenay. miyuu iska yimid bilaa sabab la'aan? waa maya. yani gacantaada intay taxarukto inay madaxa xoqdo maxaa keenay? ya gacantaada intay taxarukdo inay madaxa xoqdo maxaa keenay? sabab baa keenay sooma. sababka marka qaanuunka sababiyada maxaa weeye waa shay kasta inuu sabab iska leeyahay sooma. marka cuncunkaana inuu sabab iska leeyahay, gacantaada dhaqaaqa ay dhaqaaqaysa madax xoqaysana sabab buu iska leeyahay oo muxuu yahay cuncunkaasa sabab u ah. cuncunka laftiisana sabab baa keenay, waxaa kugu dhacay, geed baa kugu dhacay. qaanuunka sababiyada waa rumaysaa wax saxa inuu yahay. marka rumaynta qaanuunka sababiyada aad rumaynaysa laftirkeeda ma ahan arrin ba la gelin kara, laba la gelin karaa maaha. taas oo kale shucuurkan iyo dareenkan aad dareentid waa inaad rumaysaa dareen xun inuu yahay. dareenkan cuncunku inuu dareen xun yahay waa inaad rumaysaa. oo taa waxaa la dhahaa qaanuun maahiya, taana la dhahaa qaanuun maahiya. qaanuun maahiya maxaa weeye in dareenadu dareenne xun yahay, dareenna u yahay dareen wanaagsan yahay. dareenna dareen xun yahay, dareenna dareen wanaagsan inuu yahay. qaanuunka maahiyada la dhahaa marka. marka waxaa meesha ka soo baxaysa cuncunkan inuu yahay shay xun. marka maahiyadiisu wax maan wey. marka waa inaad rumaysaa qaanuunka la dhaho qaanuun maahiya waa inaad rumaysaa. waa rumayn. wax laba la gelin kara maaha. dabtaas oo kale cuncunkan xuni inuusan ahayn cuncunkii wanaagsanaa, ya waa inaad rumaysaa.
معناها شيئا عنعنكان ما دام شيء حن إنه يهي إنه عنعنكان وهذا في نفس الوقت إنه نكون كرو عنعن وحنا يسأل يوحن إنه يصير كل مكان تانا نروح يسوي وماشي وحكى بحياة مبدأ عدم التناقض مبدأ عدم التناقض أنا هلا شيء أو اللي يسكن كل مكان أنا عنعنكان إنه سمرنا ونا نكون كنا مرة حنا نكون حل شيء بس وأنا نضاو عنعنكان وحن وياه بس تسوي ده مبدأ مركب مبدأ عدم التناقض مع أسبوعنا ورمين في مركب طب تاسو kale waxa kaloo rumaynaysaa waxaan adigu inaad ikhtiyaarkaaga aad ku samaysay oo maxay ana gacantaada ku xuqaysid meeshan aad ku xuqaysid ma wax khasaba oo ijbaara ba gacanta hal mar intaad iska dhaqaaqday adoon ikhtiyaarkaaga ku kaxayn ba meesha ku xuqdo ya mise adaa doortay inaad madaxa xuqatid adaa doortay madaxa xuqatid marka waxaan aad samaynaysid oo meesha ku cunaysaa gacanta ku xuqaysidna in wax ikhtiyaarkaaga ka yimid yihiin waa inaad rumaysaa waa aysan wax ijbaari ahayn waxaasoo dhan marka maxaa weeye waa rumayn rumayntaa markii la helo markaa kadib cilmigu imaanaya waxaasoo rumayn haddaan soo sheegnay marka la helo kadib cilmigu imaanaya marka cilmigu meesha uu ka bilowdo waa falsafada waa intaasoo muqadimada hadda baan soo dhisaan soo maartay falsafaadka markaan soo dhisnay kadib ya ayaa kadib maxaa imaanaya cilmigu baa imaanaya ولذا صادرت بيدهان الميتافيزيقية مقدمة ضرورية لكل أبستمولوجيا أنا ميتافيزيقية وحنا رومين تقصاب سن وحي مقدمة أطهي ورنع أطهي وحكا أبستمولوجيا ونظرية المعرفة وحاوي قهرية محي وحا قهرية محي إيمانيات كاسا قهرية مركا أنو لأن هاي مسادرت أما إلها أنو كيلي كرنا أقوانتا waxa weeye tajrubada aqliga ama xisiga iyo aqliga aan leenahay xisiga iyo aqligaas maxaa ka horeeya yani metaphysics ka horeyso rumayn baa ka horeyso marka rumayntani waxay ka horeysaa epistemologiyada wal epistemologiyana muqaddamatun asasiyatun likulli bahth cilmiy tajribiy epistemologiyuna iyaduna waxay u tahay muqaddamo asaasi u tahay cilmi kasto tajribi marka sheekadu maxay ka bilaabanaysaa falsafad bay ka bilaabanaysaa oo metaphysics kadib baa maxaa imaanaya nadiyada macrifa imaanaysa masaadirta macrifada kadib markaasaan bay imaanaysa kadib markaa maxaa imaanaya cilmiga markaa imaanayo marka welidaa saa darteed falsafadu base bay u tahay aqoonto ma waxaan rumayntu base bay u tahay base ay maxay u tahay aqoonto u tahay okay marka arrinta ahayd uu dhahayay Stephen Hawking uu leeyahay yani mawtul falsafa uu oranayay waxa ku soo baxaysa marka ayada ah in arrintaas ay tahay arrin aan waxba ka jirin weeyaan arrin waxba ka jirin inay taa ku soo baxayso arrinta kale uu oranayay ninka la yiraahdo Nietzsche uu oranayay mawtul ilaahna ayadana soo sheegnay ayadana arrintaas inuu cilmigu shuqul ku lahayn ilaahay inuu joogo inuu tagay wax shuqul ku male marka ولذا صادرت waxaan baranaynaa in ilhaadku cilmigan uu isku dhajinayahay oo Allah subhanahu wa ta'ala nafyinaynin bal Allah subhanahu wa ta'ala uu horudhac u yahay ama muqaddamo suqra u yahay suutaankiisa wuxuu saacidayaa ilaahay jiritaankiisa saacidayo ولذا صادرت marka waxa weeye ilhaadka meesha ku babrayo aan kala soo cadayno waxyaalo tiro badan in culimada intooda badanna ay ahaayeen oo uluhiin ay ahaayeen soo cadaynay maxaa waa dheeranay inaan san ku soo koobiyo walaalo